بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى حلقة وحان أغهد ليا لبا سورة ضوت أو أدكو عقاب كريسيد كدباتين كريسيد ku gubi karaysid qofkii adiga ku sixray ee ku dhibaateeyey ee nolosha kaa hor istaagay ee adiga waxa loo yaqaano kuu adeegsaday suxaro iyo talaasim iyo wamaa shaabaha daalika. qofkaas in badan walaaluhu waxay soo weydiiyaan haddii aan ogahayna sidee iskaga qabtaa oo iskaga celiyaa, haddii aanan ogeynna sidee magaciisa ku ogaadaa. xalku waa labada tan suuradood oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa 114 suuradood laba ka mid ah uu ka dhigay. intaanan u gudbin sideeda bannaanba waxaan idiin sharxayaa qofka saaxirka u tegay isagaa markiisa hore dhiban. dad fara badani waxay igu dhahaan sheekhu anna sixir ma kaga argoosta, adigii baa hadhow ka dambi badnaanaya isagii waad la qasatay xumaantii. hadda se iskaga celiyaa, waxaad iskaga celinaysaa qaab kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu soo dhoweeyey kuna gubi karaysaa, waana aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxay uga xanuun badan tahay xabad lagu dilay, waxay uga xanuun badan tahay sakiin lagu gowracay. waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka u kaashataa, waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas ka baridaa inuu waxa weeyaan ku ciqaabo adduunka kan. xal kale oo kuu furani ma jiraan. labada suuradood ee la doonayo maalin kasta inaad ku celcelisid si qofkaas ama magaciisa aad u ogaatid, haddiise aad og tahayna aad dareensiisid inuu dhib muto, waxa weeyaan waa suuratu alfiil. سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة داس waxa loo yaqaano waad ku celcelinaysaa. sidoo kale waxaad ku celcelinaysaa suuratu الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. suuradaasna waad ku celcelinaysaa. labadaas suuradood marka aad akhridid oo aad mar walba ku celcelisid, waa kullamaa isagii uu gubanayo, waa kullamaa isagii uu saaxirkii u tagay laftigiisii uu dhahayo walaalo dhib baad igelisay, mushkilad baad igelisay, anigii baa wixii igu soo noqdeen, anigii baa naftaydii ciqaaban tahay, anigii baa dareemaya qofkii aan matalan reerkiisa ka burburiyey, ama qofkii aan shaqada ka xanibay, ama qofkii aan xanuun iyo isku sixray dhibaatooyin, ama qofkii nolosha aan ka riday, qof isagii baa dhahay haddana anigaa dareemaya. waxa laga yaabaa saaxirka isagii dib isku qabsadaan, saaxirka iyo isagii inay dib isku qabsadaan ba suuragal ah. marka walaalayaal waxaa la doonayaa insha allah biidni illaahi albaari in aad labadaas suuradood aad xoogga saartaan. insha allahu tacaala biidni illaah waxaad arki doontaa khilaala isbuucyo gudahood qofkaasoo adiga intuu ku soo waco ku dhaho walaal i cafi, ku dhaho ilaahay dartii igu daa, arrintaasaan kugu sameeyey walaalo waxa weeyaan ii bari ilaahay subxaana wa tacaala inuu i cafiyo oo adna aad i cafidid, oo waxa loo yaqaano qofka gondahaaga yimaado. saasaad kaga argoosata. waxaa laga yaabaa in sixirkiina uu sidaa ku burburo, lianno saaxirkii laftigiisii ayaa labadaas suuradood awoodda ay leeyihiin ay isagii dhibaatadii ku celinayaan. subxaana allah. ilaahay baa hore qur-aankiisa wuxuu ugu yiri in badanna aayadda waa idinku celceliyey, qur-aanku waa dawo. qur-aankan waxaan usoo dejinnay daawo. wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa ورحمة للمؤمنين. لأن الرحمة بكوية مر والب كلام الله كحرنو، مر والب كلام الله أود إلهي أديكسو، آمن نيد أفر وحسن وقت قد خلص بإذن الله الباري. إن شاء الله واس سورة بعد كرة لنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.